السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال ملك استدنا قد داونيسين وسلامتين كنا سود هذا برنامج جارة أنا قلت لقلني سود وينتا سنة كعصب اللي بدو كوني شني تبانكا يسي سجوتينتا سنة هذا سيبحي اللي بدو كوني أفري تبانكا برنامج كان وحكى داونيسين تلفزيون كعالمي سومالي channel هالكو توصل إذا كجي معنا هنا واستوديو هالدنجر مجال كولومبوس قبل كهايو سنة والبا سنة لسه wuxuu keenaa khayrkiisa iyo faa'iidadiisa iyo waxyaabo kale oo dheeraad oo la socda intaba marka sanadkii hore 2014 waxyaabo badan oo ku soo xasuusanoo leeyahay waxyaabo badan oo aan waligan ku hilmaameynaa jiro oo dhacay wadanka gudaha iyo dibaddaba marka waxaan jeclaysanay inaan barnaamijkan gaarka ah oo xasuusta ah aan ka reebno sanadkii tagay 2014 kuna soo dhaweyno sanadka cusub 2015 barnaamijka waxaa igala qayb qaadanaya dhalinyarada magaalada qaar ka mid ah siiba aan dhihi karo dadka magaalada ugu firfircoon oo dhalinyarada hawsha ka wada ah haddaan dhinacayga bidix ka bilaabo waa Ibrahim Xasan waxaa ku sii xiga ninka la yiraahdo Cabdullaahi Cumar iyo Axmed Shaakir oo ku magac dheer Yawmeyn oo idinku soo dhaweynaya marka hore barnaamijkan gaarka ah aan ugu dabaaldegayno ama aan ku soo dhaweynayno sanadkan عصوب اللبض كوني شني تبانكا كنا سجوتين إنك هذا بحي. هذا ما تنتهي ودون هي هذه هي معركة برامج كأن نقيمها على نوسو مرتقى لمانتا وحنوم هذا معركة دنجر هي الصومالي جنال صاحب بدينا أيضا كلي حقوم بيكدي دونا. هذا ما سنتهي لبانتي هذه فرصة ميقان كشان وما سنتي برنامج كانوا مرتقدان سنة كعصوب أنا ودول دقينو. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan Soomaali channel iyo Dalchi News iyo Basra waxaad leeyahay aad baa mahadsantiin sida aan u yeerteen iyo sida sharafta aad noo soo dhaweyseen idinka mudan waan ku mahadsantiin idinkan ka soo qayb galka barnaamijka nagala soo qayb gasheen saa la socotiin sanad walba saan hadda sheegay wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo lagu soo xasuusto marka sanadkii hadda naga tagay 2014 maxaa aad dhihi kartaan oo ku soo xasuusan karnaa sanadkaas hadda tagay dan والله وحياة بدن هرتا لو حسوسن كرا سنة والبا وحوليه هي تاريخ مبوكتها تاريخ وناكسن هي تاريخ حنبا قفل بنا دجوني حلاقيها بعنيجا وناجي يجتك أوقات وحي سنة كان وناجي عاركي إنه حلاقيها بسحيبك وسنة مجدي أيوة هذا حلاقيها با قفل بمركز سو سنة كا وصل وياه سبي قبي وناجي سنة كان أنا وحندي كرا سنة هذا وناكسن بيجي حياة بدن وقول بدن على الهواء جاري الحمد لله سنة والبنا حاوناكسن إن مت كساس عضو وكسي وناكسين يا كاتو نفتي 2014 نحو يقلوا وناكسن أكيد 2013 وحن رجينا 2015 إنه إن شاء الله يقلوا وناكسن عندهم مت كان 2014 ولا معنا وغير كي سنوتين. ساشكتو إبراهيم لبانتي قفل بقى استنظر بسنة كوجدوية هاي أنا جو واحد إيه لهاي 2014 سنة في عرضه هاي دي بدأ يدلك الصومالية أما أمريكا كذا نقطة الصومالية توصل ماشي أنجب ما أنت مجوب نوعنا هاي ده فيشن أو فوق ماشي وصلنا هذا الدولة اللي أنا هاي توصلنا كهر دولة مرهين الصومالية بس كأرديسي دقال سقيال وجري مركب علينا هاي سنة كلا في سنة في عنو هاي الصومالية لو تكوني 2012 كحتى وحكذا عيد دورة رسمية أو أنا كده عند معناها إن كبر لما كان سنة كده مركب سنة في عنو هاي أنا كنا هراء وصعنينا إحنا رجينا الصومالية أنا نفتي دائما إن أنا ماشي أنجورنا مع ملك في عن تقنو. سيدا سحبة سيجان وقرر أحسن هاي هرت سنة كمكور معنا قف كستو حرها سنة كم سنة كأوفعنا waxaan rajaynaa inuu kan soo socdo ilaahay caafimaad iyo cimri dheer dhamaan uu gaarsiiyo marka anigu hadda san waxaan aaminsanahay sanadkan hadda la soo dhaafay 2014ka inuu ahaa sanadaashii soo dhaafay kii ugu fiicnaa waxaan rajaynayaa inuu 15 ka sifaanaado insha Allah cimri dheer iyo caafimaad aniga dhamaanteen waalidiinteen saaxiibadeen insha Allah marka saas ayaan leeyahay waa gartay hadda marka waxaad u hadasheen hadda saddexdiina markaan fiiriyo waxaad u hadasheen si guud ahaan macnaha sanadkaas inuu ahaa sanad wanaagsan laakiin waxyaabo ma jiraan miyaa ku soo xasuusanaysiin guud ahaan wanaagiisi waa garanaa laakiin
qof walba waxyaabo gaaraa jira uu kusoo xasuusanayo xasuusta waxay noqon kartaa mid farxad leh waxayna noqon kartaa mid naxdin leh waxyaabo badan oo naxdinna lana way jiraan oo lagu soo xasuusanayo sanadkii hore saan umalaynaayo marka maxaa waxyaabaha gaarka ah aad is leedahay adiga ahaan haddaan adiga mar kale kaa bilaabo waxyaabo gaar horta aniga ma dhahayo hadda sanadkan aan guursaday oo aan ku xasuusanaya ma dhahayo maxaan ku ihahdaa oo cunuga ay dhashayna ma dhahayo laakiin waxyaabo gaar ah oo aniga personal ah markaan iraahdo sanadkan ayaga wuxuu ahaa markii aan go-aansaday iskuolka waxaan rabo aniga inaan major gareeyo isagoo aan iga dhiman tahay maxaan ku idhahdaa hal sano hadduu ilaah yiraahdo guulo badan oo kale na waan kasii rajeynaya hadduu ilaah yiraahdo inaan kusii adkeeyo arrintaas waxaana kaloo jirtay sanadkan inuu i ahaa sanadkii aan go-aansaday inaan bulshada service u shaqeeyo 2012kii iyo 11kii iyo 13kii inkastoo aan aada bulshada soomaaliyeed ugu dhex jirin ayaan hadda waxaan bilaabay 2014 inaan dadkayga community-ga ah aada usoo dhexgalo oon bilaabo dee giving back macnaha annaga qof baa meelna soo gaarsiiyey annagana inaan dadka wax un sii gaarsiino dee wax beri la yirahdana ma jiro dadka qaar waxay kuleeyihin nin dhalinyaro aad tahay ma meelaha iska fadhiisatid oo furgudoodkaaga inta iska cabtid maaragtay video game iska dhaysid oo tartiibtaada maxaa waxaan iyo community-ga inaad serve garaysid marka sanadkan wuxuu yahay sanad aan go-aansaday bulshadayda inaan wax kala qayb qaato oo aan rabo inaan caawiyo oo horumariyo hadduu ilaa yiraahdo dhamaantii soo sheega horta run waay saaxiibkee ama maraykan anaga joognaa maraykan ma aha dhamaantii sida wadamada kale ma aha qof walbo maalin walba kusoo tooysaysay farxad qofkii shaqo aadaya waxyaaba badan ku taagan waana sanad walba ma aha on kaliya sanadkan kaliya more sii kortid maraykan waxaa laga yaabaa in walwalkaada oo sii bato taas aniga personal ma iga tahay in mar walba awal walaysa maraykanka iskuolkii gradekaagii shaqadaadii waxyaaba badan oo normal life-ka kamid ah in uu qofka uu ka walwalayo waa wax iska caadiya laakiin waxaa igula yaab badan in sanadkii 2004 uu ahaa sanad soomaalida marka aan ka hadlaayo in soomaali badan lagu dilay South Africa Kenya dhamaantii dhibaatooyin loo geystay aniga iyo saaxiibadii xataa mudaharaad aan ka sameynay magaaladan dhamaantii article akhrinayay qof Soomaali oo lagu dilay oo hadana guriga loogu yimid oo la dilay waxay u noqotay inaan aniga mataqaana emotional noqdo qof wadankiisa soo tago wadan kale mataqaana oo qaxootiga ah in la dilo dhamaantii habeenkaas aad ay wax maar kulay aniga ma jeclin qof Soomaali in la dilo qofku wuxuu sameeyaa lagu sameeyo laakiin in qof Soomaali oo isaga ganacsanaya in la dilo dhamaantii aniga waa waxaan ka xanuunsaday noqotay waxa way dhibaatooyin badan waa dhaceen dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan dhibaatooyin waa soo gaareen gudaha iyo dibadba ma aha kaliya wadankii kuwa joogay waxa dibadda joogaba dhibaatooyin fara badan waa soo gaareen waa aragteen badaha sida loogu dhamaanayo sida meelaha kale loogu dhamaanayo hadda gabar maalin way dhimatay waa la socotaan oo ku dhimatay jasiiradda maanta ku dhimatay iyadana oo xataa aan la duugin ilaa ay muddo dhan marka waxyaabahaas oo dhan way dhacaan marka waxyaabo badan way jiraan aniga haddaan tayda kusii darsado ninkaas aan isku meel ka istaaganaayno malaynayo waxaa aada ii dhibtay of course tii ka dhacday South Africa weliba wiilka dhulka lagu jiidayay haddaan tusaale usoo qaadano iyo tii Kenya ee dhibaatadii ka dhacday iyadana iyo waxa dhibaatooyin meel walba ka dhacay laakiin waxaan malaysanayaa waxyaaba idinka gaar idin ah shakhsiyaadka inaad ka hadlaysan laakiin waa ka gudbaynaa maxaan maguula caruur uma dhalo badanaa qofka badanaa ka sheekeeya markuu cunugu dhasho kale sanadkan waxaa ii dhashay ama waa guursaday wax noocaas waa guursado kale waa sax waay marka sanadkan hadda soo socda ama sanadkan hadda noo dhashay ee aan dhehnahay 2015 maxaa rajaynaysaan sanadka 2015 markaan leeyahay maxaa rajaynaysaan ama maxaa malaysanaysaan nolosha guud iyo nolosha gaarka intaba aniga lagu bilaabaa adiga la kugu socdaa sanadka horta soo socdo sidaa marka hore aan ku bilaabo waxaan iray sanad walba waxaa wanaagsan in sanadka sii dambeeyo kaaga sii wanaagsan yahay oo guulasha aan leedahay aa gaarto guulal badan aan leeyahay hadduu ilaah yiraahdo waxaan rajeynayaa sidaan sheegay marka horeba inuu horta iskuolkii dhamaado 15ka waxaan kaloo rajeynayaa dee inaan maaragtay guursado hadduu ilaah yiraahdo ayadana
waxaan kaloo rajeynayaa hadduu ilaah yiraahdo inaan aan hooyo xajka geeyo hadday ii suurto gasho iyadana arrimo aada u badan oo kalena waa jiraan marka dee wakti soo socda balanadiisa unbaad yeelan kartaa adiga inay dhacaan wixii ma suurto gelin kartid marka waxaan laakiin rajadeedu aada u fiican tahay waxaanan insha allah hubaa inay 14ka uu kasii fiicnaan doono hadduu ilaah yiraahdo soo sheeg sax waaye saaxiibkay dhabaantii anaga maraykanka markaa joogno every year maskaxdaada way koraysaa more responsibility imaanaysa sanadka hore waxaa laga yaabaa inaad iska ciyaaraysay laakiin sanadkan socda waxaa laga yaabaa in ay isbedelayso maskaxdaada more responsibility waxyaaba badan in mataqaana ay ku dhacaan marka I believe aniga in responsibility badan ay usoo socoto oo aan ka fikirayo marka responsibility oo sheeg saaxiibkay hataa inaan guursada laga yaabo inaan guursada laga yaabo marka responsibility badan aa jiro oo xagga iskuolka inaan dhamiyaan waa ku qasbanahay sanadkan maadaama aan senior wadanahay anaga dhan sanadka ugu dambeeya jaamacadda inaan wadanahay waa ku qasbanahay inaan dhameyna sanadkan iskuol inuu dhameeyana wax easy ma ahan sida high schoolka ma ahan wax adag waay marka saaxiibkeen waxa ku daraya waa ma garanay horta qaabka iskuolka isku mid ayaa ka nahay inaan iskuolka aan dhameyno waxbarashadana ku dadaalno midda labaad waxaan aan same ka nahay saaxiibka Ibrahim inaan waalidkayga xajka aan geeyo haddii ilaahay oo igu talagalo aan awoodo ma dhahay aan guursanaya sababtoo guurka calaf waaye taas waxaa waa ilaahay baa og marka insha allah waa qaan marka baro inaan suuq iska xiro maasha allah horta waxaa meesha ka soo baxday dad badan inay sanadkan 2015 ay u dhaarsan yihiin oo waliba u dhaarsan yihiin inay guri galaan kawde marka dadkiinan u dhaarsan inay guri gashaan sanadka 2015 I hope waxaan rajaynayaa inaad maaragtay guri wanaagsan iyo guri wanaagsan ilaahay idin siiyo laakiin naga soo qaybgeliyeen soo invite haddaan su-aashii ahayd usoo laabto sanadkii tegay 2014 ma xasuusataan sanadkii markuu bilaabanayay 2014 waxyaaba badanaa iska daba dhacay sanadkaas bilowgiisii soo maaha so marka qof walba halkee horta ugu dhashay sanadka maxaana ii sheegay markaas iyada ah soo dhaweynta sidee uga qayb gasheen oo sanadka 2014 aniga horta waxaan joogay magaalada Minnesota ayaan joogay state Minnesota horta meel Ohio kala maahan oo hadda aan maaragtay anaga jaakadaan iska qabnaa maanta laakiin xagga marka sanadkii hore waxaan xasuustaa jaakad aad u weynin badan oo qabowgu maaragtay oo aan 5 degree meelahaas waxaa umaleynaa iyo koofiyadaheeda iyo meel aad u qabow badan oo igu dhashay laakiin waxaa wanaag ahayd waxaan la joogay hooyo iyo familkii oo dhan ayagaan rabay inaan la qaato new yearka oo aan maaragtay sanadka cusub oo igu dhasho anigoo familkaygii hooyo iyo la joogo oo muddo markaas xoogaa ka maqnaa marka sanad wuxuu ahaa fursadda iskuolka liga xiray baan ka faa'iidaysanayay xaggaan tagay xaggaan kusoo qaatay qabowgaas waxaan ahayn kale ma jirin oo aan hadda ka sheegayo laakiin sanad aada u wanaagsan si fiican buu igu dhashay familkaan la qaatay reen iyo maxaan ku yiraahdaa iyo dee qaraabadii oo dhan baan la joogay marka it was very good maaragtay markuu bilaabanaya ما شاء الله. مركز هابكاس أقول عيدي سنة كاس. هابكاس أقول عيدي فمن كان لقاتها. ما شاء الله. أوكي. أنا واحد جوجي دبانتي يعني تورنتو كندا جوجي يعني تورنتو كندا أرتا يمريكان حاجة كده دوين يعني ضدك إنك استو ويسترن تاعي بدنا ضدك كدوين داونتون كاني عن تجي وحاركي ضد جاك لو تسكلوا بينا يعني ما نعتقد ولا تسكلوا بينا يعني سأ أنا قاعد أعمل ما لو بيكنا أنت بدل. قبل مجرن معنا. هو جرا حتى نفسه لكن والله بينا يعني داونتون كان ويك كلوين هنا تورنتو وين جوين تاعي ضدك حفظي كلوا بينا باور إنه قاعد تحت مهم مع الولاية. هذه والله يا. القف جاك لو تسكوتا ويا يعني وحنا ما لو بينا يعني. مركز ودن ونقدون لكن نودو وهذانا ضدك قوي ويبرتين ويقانا ويكن وين دينو سيد الله له هندل رجع وسيد أنا قاعد ما هن إنكستان أنا قاعد مريكان هذانا تمام ويجونا لكن هذانا إيه قوي يقانا وانا كراية إيه ما كراية هذا بسؤالي ساس أمي ما كراية أمي واسكالو وينايان على خبزة مركان هالكاسان جنو جاي وين هذا بانتي أنا وده كاستو وقت يقول رئيسي أنا ولا شيء أنا ترنت تك ومغلي جرت ترنت إيه كندا لكن وأنا وضد في عنا بانتي كندا وأنا قاعد وأنا في عنا مكان كي وعيد داي مكان برف مكان لا يسوي برف ساس مدي وحيلا دقاي لكن قبونا وقهد ضد بدنا الصومالي يعني ما له وجهنا يعني قفل روح ودبانتي
habiyan ku wada inaan sanadka soo dhaweyn dadka Mareykanka camal maaha iyo hadda Soomaalida Mareykanka ay joogto uma soo dhaweeyaan ay wax u soo dhaweeyaan mataqaana waa la isku wada imaanaya meel la isku wada imaanaya baadi la dhigaya it wasn't a body body mehe laakiin community gathering community ga isku imaanayso waa la wada hadlaya meesha inta lagu wada cunaya qof walba wuxuu ka sheekeynaya taariikhdiisii oo taariikh ka sheekeynayo haddana Toronto waxaa jooga Soomaalida hore soo gashay in ka badan Soomaalidii 80s-kii iyo 70s soo gashay marka ka sheekeynaya si wadanka ugu dhibtoonayeen haddana u yihiin dad Canadian oo la qabsada ma yoo fiican yihiin aad dad horumar leh oo wax fiican sameeyay jooga marka aniga aad soo dhaway wadankaas markaan tagay waana ku faraxsan habeenkaas kale aad aye أنا سنة كأن لبض كوني أفرتون كوفي أقولش دي أنا نجيب هيدي وعلى هي صاحب ذي وأصلع شيء مش مثلا TV كذا داونني شيكوين كوركيش كسنة وهو هبين أدي أضو فرحة بدن واجي نوبري ثلاثة حياة كنا ما كتبوا عن سحنا مركب هبين اللي لو بكرماهن هودو هدي أنا قياسو هبين كاس هودو هاي أدبو في عنا صوبته بالبش الإسلام عمل هاي هودو الحمد إن إسكت في عنده أوس تيري ديجريس إلى فوري أول حيسو مركب جمر اللي قاري فبراير أيه باشو أيه هاسك حماتا marka hawadu waa fiicnayd saaxiibadii iyo walaalahayaan shaah iyo casho isla cunay marka ma sha Allah si fiican ay ugu dhashtaan gaadayas ma sha Allah marka si fiican ay u ciideen sida hadda sheegaysiin dad aniga wallahi waxa way ma garanayo meel ay ugu bilowday meel ay ugu dhamaaday toona laakiin waxaan maleynayaa sanadka hadda aan dhigi karo waxyaabo wanaagsan way jireen laakiin waxyaabaha badanaa aan la sheeganaynayo dadka Soomaaliyeed ay ugu darnaa markii laga hadla dhinaca maaragtay waxyaabaha Soomaalida soo gaaray oo kale iyo waxyaabahaas ay ugu xasuus badnaa laakiin markaan dhaho sanadka si gaar ahaan meesha ay ugu dhashay waxaan maleynayaa gurigeyga aan fadhiyo ay ugu dhashay ma garanayo meel kale ay ugu dhashay si kale u dhaweysay ma sha Allah alxamdulillah marka waqti sanad walba waxa way wuxuu la imaanayaa ma ogid adiga meel aad gaaraysid laakiin sanadka markuu dhasho farxad dad ku qaadanayo waxa jira dadna waxa laga yaabaa inay maaragtay iyagu xanuunsanba uu dhashay sanadkii dadna iyagoo caafimaad qaba oo maaragtay dadkoodii la joogo familkoodii la joogiye inuu dhasho marka waxa guud waxa ugu wanaagsan waxay tahay in adigoo faraxsan familkaaga la jooga ilaahay caafimaad ku siiyey inuu kugu dhashay sanadka cusub taas ugu wanaagsan marka taas waxaan u maleynayaa kulligeen waa noogu wada dhashay sidaas marka ilaahan ku xamdinaynaa tanna ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa intaas iyo in ka fiican waayahay marka haddii aan idin weydiiyo waxyaaba dhalinyarada magaalada tihiin waxyaaba badan aad ka warhaysaan magaalada Columbus dadka shida ayaa tihiin oo aad ka qayb galayseen dhalinyarada ku jirta marka waxa ay sheegtaan waxyaabaha oo dhalinyarada maanta hobby u ah oo badan ama aragtay sanadiyada cusub oo kale of course wax baa jira oo sameeyo marka maxaa sameeyeen hobby ahaan u sameeyeen horta hadda waxaa soo baxay 21st century lagu jiray dhalinyarada dhan waxay noqdeen electronic iyo balkan waaragtay de iPhone-ka wuxuu u bixiyeen isku soo dhaweeyaha dadka kala fogeeyaha dadka isku dhow ani adiga waan wada joognaa waan isku dhownahay Soomaa waa kala fogaanaynaa qof walba bahalkiisa la soo baxaya uu ku mashquulaya dadkii kala fogaan uu isku soo dhaweeyo qofka la hadlaysid meel fog uu joogaa marka electronigas iyo waxyaalahaas iyo maaragtay video games iyo bayda dhalinyarada hadda waqtigan magacbela waa kala yaa u bixiyay maada u bixiyay ya kala u bixiyay laakiin aad aan uga helay isku soo dhaweeyaha dadka kala fogeeyaha dadka isku dhow marka hadal weyn waaye electroniga iyo sidoo u horumaray cadeynaysaa marka dadka qaar dhalinyarada waxaan u maleynayaa qaarkood video game markay oftaa helaan waxay dhahaan caawa fursad video game iyo waxyaalaha games oo fadhiistaan dadka qaar waxay aadaan baris iyo xalfado dadka qaar waxay aadaan maxaan ku raadaan ni downtown ko kale buloleeryada iyo waxyaalaha dad iska soo daadaa jira aniga waxaan dadka electroniga aad u jecel oo habeenkaas jaaniskas markaa helo meeshaan downtownka iyo qatarteedaan aadi lahaa waxaan jeclahay inaan asxaabtayda asxaabta fog inaan soo dhawaysto kuwa markaas isla joogna maaragtay si kala fogeeya beere electroniga aniga New York saasaan ku qaataa inta badan waa sidoo sheegay saaxiibkay Soomaalida Mareykanka dhawaantii waxaan madaa in dhaqanka Mareykanka qaybta fiican dhawaantii ay ka qaadanayaan qaar way jiraan laakiin oo qaybta xun ka qaadanaya Mareykanka dadka qaar magaalada jooga Soomaalida waxay dhaqan hadda
oo jira uu yahay in la travel gareeyo baabuur la kiraysto magaalooyinka la aado Canada Toronto and New York meel walba la aado flight waa very expensive iyo hataa flight kaliya ma hataa baabuur aan qaadanaa waxaan leeyahay aniga magaaladan sanadka cusub ma kusoo dhaweynaya magaalo kale kusoo dhaweynaya aniga hadda waa baxaya laakiin magaalo kale aadaya waa wax fiican inuu qofka magaalo kale aado oo dadkiisa iyo saaxiibadiisa oo kusoo mataqaan la soo baashaalo iska fiican tahay oo la soo caragejisto way iska exactly marka must be wal aan arkay in waxay dhahayaan waa baxaynaa baabuurayna qaadanayaan dadku way jiraan laakiin oo diyaarad qaadanaya way jiraan laakiin dadki inta badan arkay saaxiibadii waxay u dhaheen magaalooyin kale aadayna intii baabuur aan qaadanayna idin nafteeda way fiican tahay dhaqanka Mareykanka ka mid tahay qofba qaabu sanadkaas kusoo dhaweeyaa dad baa jecel inay habeenkaas gurigooda joogaan movie ay familkooda la daawadaan quiet ah oo iska jecel inay meeshaas iskala sheekaystaan dad baa jira inay vacation iyo magaalooyin kale aadaan anuu waxaan aad u jeclaa inaan vacation aado oo magaalooyin kale aan aado maadaama niman dhalinyaro ah aad tihiin magaaladana aad ogtihiin waxaa ka jira magaaladeena maxaa umalaynaysiin dhalinyarada hadaayo waxaad ka hadashay waxaa tiri dhalinyarada wadankan aan joogno waxyaaba badan aan kala qabsanay dhinac fiican dad kala qabsadaa jira dhinaca xun dad kala qabsadaya jira magaalada dhalinyaradeeda maxaa umalaynaysaa in ay dhinaca wanaagsan badan la qabsadeen mise dhinaca kale ay la qabsadeen runtii magaaladan horta magaalo fiican waaye Columbus Ohio ma ayna dhahay waa deganahay aan ku amaanahay laakiin magaalo fiican waaye community walba ama dad walba oo Mareykanka ku nool ma laga weynahay dad wax sameeya dib sameeya laakiin Soomaalida magaaladan degan ee Columbus Ohio dhalinyaradeeda dhamaantii inta wax sameeysa ama dib ku sameysay Mareykanka ee Soomaalida dib u soo jiidi karta dhamaantii way aad u yar tahay marka loo fiiriyo magaalooyinka kale ee Soomaalida ku bantaan sida Minnesota iyo waliba Canada waxoogaa waa ka fiicannahay dadka dhibka sameeya Mareykanka ama hay'adaha Mareykanka waxay ku eedahay Soomaalida Minnesota degan in ay dhib geystaan mataqaanaa wadamo kale ay u safar gareeyaan dhib geystaan sida hadda maqlayseenba Ingiriiska waa taa maqlaysay 13 wiil ah wax loo yaqaan sex ring Soomaaliya ma ku dhihi kara laakiin ay dhabaantii ay sameynayaan Minnesota ka dhacda hataa in ka badan 40 wiil oo Soomaaliya iyo gabdhaha hataa waxaas lagu qabtay weydiinta sharciga laga xumeeyay xabsiga la geliyay laakiin magaaladan annaga nafteena marka hadda u soo laabto magaalo fiican waa dadka wax geysta ama dhib geysta ma la dhihi karo waa Soomaalida lagu kumar gareeyaa ma dad fiican waaye oo shaqaysta oo wax barta intooda badan waxaan aniga aan isleeyahay dhinaca ka taabtamaan dhinaca kale ka taabanaya dhalinyarada waxay u badan yihiin saddex qayb baa jirta qayb waa dhalinyaro ka fikirta maxaan ku idhaahdaa ideas iyo inay horumar iyo waxyaalaha ka sheekaysata iyo wax soo kordhin iyo dhalinyaro waxaa jirta ka sheekaysato ashqaas shakhsiyaad inay dadka ku mashquulaan iyo dhalinyaro waxaa jirta ka sheekaysata dhacdooyin xalay basketball dhacay soccer dhaca oo kale yes marka dhalinyaradeen waxay u badan tahay labada qaanadoo ah in ay ka sheekaystaan maxaan ku idhahdaa dhacdooyin iyo ashqaas shakhsiyaad inay ku mashquulaan oo gabar hebel uu guursaday waa la kala tegay waxyaala noocaas marka waxaa fiican dhalinyaradeena inaan badana aan maaragtay tababarno oon la hadalno oo la sheekaysano oo ku badino si maaragtay inay ka hadlaan inay ka sheekaystaan ideas iyo ra'ayo iyo talooyin iyo caqli sida hadda dadka ugu badan communitiyada ugu badan oo saa u fikira waxaa waaye lagu tilmaamaa indheerta dadka Chinese-ka iyo Japanese-ka iyo waxaad arkaysa cunuga asagoo yarba inuu fikirayo uu isku dayayo maxaad soo kordhisaa inay ka sheekaysanayaan waxyaalo dee waa yaabaysaa waxyaalo ay ka sheekaysanayaan ayagoo dad yaryar ah ilmaha bay caqli iyo ideas iyo kala gudbisanayaan marka dhallinyaradeena inaan aada marka u bushgareeno oo qaanadaa saddexaad maaragta aan u badino inay ka mid noqdaan qaar badan oo hadda saas way jiraan saa u fikira laakiin waxaan isleeyahay way yar tahay dhallinyaradan waxay ku mashquulsan yihiin waxyaalaha aan qiimaha badan lahayn manaha soo sheeg sax waa in tusaalahaan marka loo soo qaato hadda qof China ka yimid ama China kusoo koray iyo aniga oo dagaal sokeeye ka imaaday academically xoogaa different aan ahay marka aqoon timaaday wax la dhihi kara ma ahan waa isku compare gareyn karnaa laakiin taas micnaheedu ma noqonayso in aan dhahayo Janiska iga fiican oo anigana iskuul ma aadayo dhawaantii meesheedaan ka qabanaya anigana waan dadaalayaa dhawaantii halmaa la wada qaljibinayna laga yaaba inaan academic la kala duwanaha laakiin micnaheedu maaha inaan aniga aan dhahayo waa liga fiican yahay haddana su-aasha aadaya aan sii raaco waxay horta Soomaali ahaan haddii magaalada la fiirsho ma yarin
waxaan ku qiyaasaa ilaa 50 ilaa 60 kun marka haddii sida Cabdullaahi uu sheegay dhinaca balance oo ku yarnaay waxaan kaloo aniga magaalada aan aad iyo aad ugu jeclahay xagga sadaqada iyo wax bixinta Ramadan كان يسحب العجلة يقولون نقوليها يعني قراءة يعني رجال أنا مش قرح ذا قرول أو نين ديجريس أيام قوليها قراءة يعني رجال ربنا أيام مش غنى سي ضد كل عهد أسكب إحنا وإحنا مش غنى برنامج لا ولا الأفوري وأدوكنا لا رونا أوهايو مينيسوتا كندا لندن نيروبي ميلبورن بعدوك لا رونا قصد ولا حنا مرون نقضي أوهايو مرون نقضي ما شاء الله لعبت أوبن أدوك لا قدر حق صدقة برنامج ولا أفر أنا قدرني marka magaalada taas ayaa ugu hambalyeynaya xaq istaqada ay aad u fiican yihiin haddaan si daba galo su'aasha aad tiri dadkan waxay soo marin nolol fiican anaan dagaal ayaan soo marin excuse ma noqonayso u fiirso nin kastoo adduunka ugu taarjisan rafad ayuu soo maray Bill Gates sadaalato yani ragga adduunka ugu lacagta badan oo taajiriinta waa rag nolol zero ku soo ciyaartooyda kale akhtariyaasha kulli waa rag zero ku soo bilaabay oo familkooda gaajo ahayeen always successka waa ninka gaajada nin familkiisa raaxa ku soo kareeyay ma horumar ma gaaro intuu tumanayo oo hadba magaalada ka dhacay dalxiiska iyo ay waqti ka dhamaanaya marka aan lafteena hadaan Soomaaliland anaga ayaa rabaa inaan horumar gaarno yani ninkan Chinese-ka waxbarasho soo maray excuse ma noqonayso waxa laga yaabaa soo nolol raaxa ku soo koray anaga rafaad soo maray anaga guul gaarno sababtoo niyadeena waxa ku jirta dhibaato soo martay dhibaataha ku dhiman camal marka sax runtiis aku sii daro magaaladan waxay noqotay magaalada dadka ugu generous oo markay intimaada lacagta masaakiin loo diro Afrika loo diro ama meel kale loo diro waxa kale oo si fiican tahay magaaladan ma dhahayo waa amaanaya magaalada police sheriff magaaladan degan waa dhahay dadka Soomaaliyeed ee magaaladan degan oo dadka haddii dambi timaado in laga galo magaalada Columbus dadka ugu dambiyeer waa dhahay taas nafteeda waa arrin fiican wax xusay markan laakiin waa guul weyn oo soo haytay Soomaaliyeed degan magaalada Columbus dadka ugu dambiyeer waa ana magaalada Columbus dad waxaan sharciga Mareykanka raacana as a community Somali community laga hadlaa ma sha Allah nafteeda aad u fiican in la xusay ما أي ونكسن واحد. ما دام هذا عن دليرة هوله هذه عن كهذا ساعد كذا واجسي أحمد الله ده هي صدقة مش أوبضا وصدقة اللي قالوا لي ما دام هي قبل كان أبو مجال لنا هو شافنا أطبقتين وكل حجرتين عرفتين إذا كدباتين كبضنا فرع بدنا سوق على يمكن ما تدق أوضن كيجوجا سنة كان هذا لنا يا أما سنة كان هذا عن الله هي لابد يكون يشاري تمك عليه ما رجعني سيمي أبيك سمعت هذه مرة ماني ولي قاعد ودن كي كمان دمان دباتوين كودن كي كمان دمان مركا سنة كان عصب محاقر شيء اللي هي أو بشيء أبو قبنيسان هرت إن شاء الله ونسيل والله بدونا وحن قبني مركز توحى قبت له مفرح سنة وحالي هذا وحير بان قبتي سي وين أو قبتي سنة كده نسيل حتى أبارة نعرولني حتى أبارة وكذا قاعدني 41,000 المجال كعرولني waxaan rabnaa inaan haduu ilaa yiraahdo si la bilaabno hadda waxaan sanadkan 15 isku dayayna inaan dhinaca waxbarashada Soomaaliya iskuulada dhismadeeda iyo jaamacadaha in laga furay iyo meel iskuul in laga furay inaan ka qayb qaadano targetkeenu uu yahay 2015 haduu ilaahay noo suuro geliyo maxaa yeelay waan markaan fiirinay waxay noo noqotay waxbarashadu inay tahay wixii looga bixi lahaa faqriga oo looga bixi lahaa violence runtiis waa saaxiibka أنا دمانتي مرة بحاول تاجنا كليا سنة إبراهيم حاسبنا سنة كل لغة كونية لغة أمرنا لغة إسرائيل حقيقة بدنا نشر واشنطن كده عيا وهي بدنا كل إلا وقت كاس موسوون ما هو حد بالله أنا قاعد هنا سمعنا حق قبلنا ناس ما هو عش واحد عن صوب بالله إن وغيران تتبصر عن ودني وحيبا قبلنا السومالي ده السومالي جوكت قبل والبوا السومالي كم ده واسيلا ولا بينا السومالي ده مقالة دكتنا جوكتنا دمانتي أنا نقفرسين أنا ما أقول عن شاك عباية عن تروح ده وريني لعكت بحميها روح ده يعني برضو نوقف فرح سموها دمانتي وأنا سيلا ولا بينا ما شاء الله إلهي إذا كيس إلهي إذا الله قرب كودي صدقة بقى بحني إنسان أدتك نقدر إنسان وقت ضد كلام أعظم دري ضد كيمياء وبتاع مركا معها وح أنا وحنا أكل وح واجبة مركا وأكل إني شقاء القبصتين إنتهاي هذه إلهي ذلك اللي أنا السنة كان الصبح شنو يتوانكا هذه إلهي إدمينا هوش ماش كسي والدين ضد كلام أو الغيرة إذا كإذا لم أنا إن كل الرجلسين هذا وفي عنها يعني كاس هذه أنا نكون طبعا كفاية ديستو بس I want to say thank you on behalf of my friends يا دمان always waxaa tahay qof na encourage kareeya na taageera marka aadan kugu mahadcelinayna هذا مثلا وسكول لنا تاس ولا لنا هو
haddaan idinka encourage garayn idinkana aadan encourage garaynin iyo maxaa meesha yaalloo kale markaas waa isku leenaa intaas marka haddaan marka aan su-aalihii ugu dambeeyay aan idin weydiiyo maxaa dhalinyarada magaaladeena Columbus Ohio waa ammaan waa u dhameynaan u malaynayo magaalada caawa waa ammaanay waxaan dhahnay magaalada ugu sadaqada badan waaye magaalada ugu fiican waaye dadkeeda crime-keedu waa yar yahay marka maasha Allah magaalada waa ammaan tahay caawa maxaa dhalinyarada magaalada aad isleedihiin waxyaabaha aad isleedihiin waa u baahan yihiin inay ama helaan ama ay ka kabsoomaan dhinaca ay ku liitaan oo isleedihiin waa u baahan yihiin in dhinacaas ay kasoo kacaan dhinacee waaye maxaa kula dardaarmaysaan marka anigu waxay ila tahay magaaladan kaliya haddaan ka hadlayo dhalinyaradu inay ilaa dhalinyarada iga ralo aan kaa dhexgala haddana dhalinyarada qayb fiican alxamdulillah waa jirta idinkaa magaalada ka dhashay magaaladii macnaa magaalada joogo dhalinyarada magaalada kamid ah qayb kaloo liidato oo jeelalka ku jirana waan leenahay qaybo badanoo waxaan leenahay maaragtay xoogaa dhunsanna waan leenahay marka dadka dhalinyarada kuwooda wanaagsan iyo kuwooda fiicanba maxaa fariino aad ureebaysiin horta kuwa wanaagsan waxaan ku leeyahay there is no point going up in life if you cannot bring someone up waxaa jirta macno ma sameynayso haddii aad nolosha kor meel kore aado haddaadan qof kor usoo qaadi karin marka waxaan leeyahay dhalinyarada kor aaday wax baratay inay qofka hooseeyo dhalinyaradan halaadoo kale inay wacyigeliyaan caawiyaan la taliyaan kor usoo qaadaan because idinkaa kor aaday inaad marka qofkii idinka hooseeya nolosha dhanba macnaheeda intaas marka inaad soo qaadaan dhalinyarada wanaagsan inay kor usoo qaado kuwa kaliita ay hooseeya ay kor usoo qaadaan dhalinyarada xunna dee waxaan dhihi lahaa wanaag wuxuu ku jiraa inaad maaragtay waxaan iska daysaan dee intiinii wax badan soo waday waa aragteen waxaan inuu macno lahayn maxaan ku ihahdaa magaaladan iyo suuqan aad ku jirtaan iyo drugskan iyo wax idin wanaagsan maaha noloshiina wax maaragtay gacan qabanaya maaha dadkiina wax gacan qabanaya maaha qurbadan aad joogtaanna waa fursad waxaan dhihi lahaa ka faa'iidaysta wax wanaagsan ka qaata maaragtay adduunyaduna waa laba beri si ka duwan aan u dhahayaa dhamaantii aan kula tali lahaa dhalinyarada magaalada Columbus degan ana waxaan tagay magaalooyin badan oo Mareykan kamid ah Toronto ahaa xataa oo Mareykan kamid ahayn xogaa magaalada marka loo kombargaray dadka active-ka ah ee siyaasadda ka qayb gala Mareykanka way ka duwan tahay xogaa magaaladan ma dhahayo magaaladan xogaa ka dadsan tahay xagga siyaasadda laakiin Toronto waxaan ku arkay aniga gabar yar oo aniga yar probably of 3 sano ma gaartay 22 sano jirto way u tartamaysay inkastoo Mareykanka ay ku dhalatay Canada waxay u tartamaysay city councilka magaalada u tartamaysay gabar kale oo iyadana wax yar ka weyn iyadana 25 jir ah waxay u tartamaysay iyadana magaalo kale u tartamaysay oo laga dhawdo Soomaali ah Minnesota waa aragteen Cabdi Warsame wuxuu u tartamay isna meelo badan waxaa dhila magaaladan Columbus Ohio dad badan oo dhalinyaro waxaa jirta oo successful ah laakiin meesha ay joogaan iyo waxay qabteen kulay aan ma garanayo dadka qaar waxay dhahaan maba isku xirna marka waxaa dhilahay dadka wax bartay ee magaaladan degan inay siyaasadda Mareykanka qayb galaan ay Soomaalida hore waxay dhahday bal ama ka muuqo ama ka maqnaa point wanaagsan waay point aad iyo aad aan ula raacsanahay marka 15 sanadka laga faa'iideysto 15 sanadka laga arka xafiisyada dawladda laga arko 15 please sidoo kale su'aashiisa Cabdullaahi oo dhahay meel ka maqnaa ama ka maqnaa horta ku saxsan yahay haddii sir ahaan loo fiiriyo Toronto Soomaalida joogta eedigii 70gii bay soo galeen waa naga horeeyay wax badan bay naga horeeyay Minnesota kale 90gii Nairobi kale imaanay oo qaay haddii la qiyaaso dadka ugu soo horeeyay 98kii bay imaadeen marka yani ka muuqnaas meesha ay ka muuqdaan iyo waxaas yani waa inta naga soo horeeyay anaguna waa gaari doonaa xagga dawladda Mareykanka oo halka sheegay yani waa inta naga horeeyeen kaliya way anagu hay'adda ugu wato qofka ugu badan wuxuu joogaa 16 sano meelahaasna waxa kaliya dad 30 sano joogay marka waa kala horeynta haddii noqoto dhalinyarada oo hayo waxa aad u fiican inta xabsi ku jirto waa yartaa horta dhalinyaradu iskuul bay aadaan baroniga ciyaaraan way dhalinyaro adiga mashquulsan way waxaa jirtay xaflad dhacday oo hay ka dhacday 27kii 28kii bishii aan June oo lagu dabaaldegay kooda Luulyo dadka ugu badan meeshaas 95% dhalinyaro ay ahaayeen da'doodu ay ka yartay 25 sano marka dadka u baahan magaaladan in la bedelo markastana waa ka hadlaa saaxiibadana oo dadka u baahan magaalada in la bedelo waa odayaasha iyo dadka waaweynka dhalinyaradu booskooda ka soo baxeen xagga midnimada mudaarad ay jiray ayadana qabanay May oo South Africa dadka 90% dhalinyaro ay maata
odayaashii imaamooyinka guryahay fadhiyaan waxa u baahan gobolkan oo hayo gaariga ma haystaan waa haystaa kale ilmihii baa imaanayaan caruurtooda imaanaya ay guryahay ku harayaan odayaashii baabuurtoodii baakinada waxay buuxinayaan meelaha oo la fadhiyo marka dhalinyaradu booskeeda way kasoo baxda haddii aanu aan runta ka hadlo waxaa naga seexday waa dadka waaweynka sida uu sheegay oo kale walaalkeed ay sheegeen yani soomaalida ku jirto kale lahay kansarka yani dadkii ay ka horreeyey baa koraa soo fariistay marka dhalinyaradooda easy ba u noqotay waa loo sii fududay anaga marka inaan dowladda maraykan aan u shaqeyno waxaa suurtagelin weysa dadka naga horreeyey baa naga seexday access baa waa loo sii fududay anaga marka waxaan rajeynaynaa maadaama anaga naga halowday dadka naga dambeeya ee jilka soo socday hadda high schoolka aadayay inaan anaga usii bilowno marka taas waa midda kale waxaa jirta maraan maalin aan guriga garaacnay ramadaankii lacag baa ururinay oday soomaaliya naga furay waa yani waxyaalihii aadka ugula yaab banaa odayga marka noo furay waxaan dhana lacag baa ururinaa soomaaliya loo diraa aduu sheekada markuu naga dhegeystay odaygii ayuu wuxuu dhaawaa lama shaqeynaya waa farxna marka anaga qoraxda way kulashaa nin soomaaliyeed oo oday ah oo 65 sano jir dhaawaa lama shaqeynaya waa yaabna marka odayga marka wuxuu yidhi waa lama shaqeynayaan aan adeer laakiin maxaa kuu kalifay markaas odagu wuxuu dhahay niyo waxaan rabaa lacagta aruurisaan wixii soo haray in hadhow idinla qabsado wallahi inaan been ka sheegin waa soomana waa 4 bm lacagta marka aruurisaan buu yidhi kulley wuxuu yidhi qaar baa diristaan qaarna waa qabsistaan biraadeer waxaan anaga iskuul ba aadnaa ramadaan weeye lacagtan aan aruurinayno shilinna kama reemanaan anaga baabuurtana gaas ku sugnaa si aan guryaha uga garaacno anaga wax ma reebno may waxbaa rabata marka dadkaas kulaa soomaali ku jira oo ayakan wax ma qabanayaan dadka wax qabanaan way niyo jibinayaan waxaan leeyahay ilaahay ha soo hanuuniyo magaalada dadka u baahan in wax la qabto waa dadka waaweynka marka taas waa waxaad iyo aad looga naxo waxaan leeyahay sanadkan soo socda waxaan rajeynaynaa inay odayaasha guryaha kasoo baxaan ma ilaaha idinkiisa horta sanadkan hadda dhashay 2015 ilaaha idinkiisa dhalinyarada iyo odayaasha iyo habraha iyo maamooyinka iyo cid walba waxaan leenahay ilaaha idinkiisa horta ilaaha caafimaad iyo cimri dheer marka hore ana siiyo nabad iyo barwaaqo iyo khayrna ilaaha ana siiyo wadankeena iyo dibadda intaba marka kulligood guud ahaan waa wada waaninaynaa kuwa xun oo dhanna ilaahay soo hanuuniyaan lena marka dhinacan seriouska marka hadda waa ka baxeynaa xoogaa waa kulaanan malaynaya serious aan noqonin dhinaci madadaaladii aan u gudagalno waxaan malaynayaa qaarkiina waxaa soo diyaariseen wax yaroo sanadkan cusub aan kusoo dhaweyno marka adaan kugu bilaabaya ninkan abwaan waaya la yiri maasha allah la soo bax wala burhaantada la soo bax aniga abwaan ma yihi maxaa soo diyaarisay sanadkan cusub abwaan haddaa dhahdo moogta waa xil culus dad badan a kuu qabsanay waa wax la isku taaban kara maahan dad horaa jira qaladaada gaari kartaa laakiin marmar waxaa jirta shucuur intay arrimo intaa aragtoo kale waxaa aragtoo kale dhibsatay ama waxaa aragtoo ka heshoo kale baad laba eray inaad ka tirahdaa laga yaabaa oo niyadaada kusoo dhaco marka aniga 3-4 dhacdooyin badan baa jirta badanaana dhacdooyinka 4 adiga 5 jeer camal baan dhacdooyin wax ka dhahay dhacdadii waxaa ka mid ahay dhacdadii Kenya markii dadka lagu xirxiray Kasarani taas ayaa dhacday ahayd dhacdooyin kale badanna way jirtay marka taasaan isiri mar haddii maaragtay aad abwaan igu tilmaam waxaan idhaahday kariimow dhulkaygii anaa laygu kari waayey kabtii laygu dhalay iyo haddaan Soomaaliya joogo Kenyaati ima dhahayn kibaandada Kenya kibaandada waa taqaanaa Soomaaliya waa sharciga Kenya Kasarani laguma xireen kumaandadkaygii sankaduudi hooyooyinkii ma uu ka haysteen kumi nagama qaadan rabow gaalka koorta leh kumi macnaha waxba kumi waxay dhahay Kenyaati lacagteeda waaye kasbanaya xumaanta galnaa keentay aafada nakalkaal allow adaan addoonkuu nahay marka taasna waxaan ula jeeday macnaha in dee Soomaaliya haddaan joogi lahayn qurbaha aan ku dhibi lahayn oo dee aragtay Kenya noo ku dhibaateeyey South Africa noo ku dhibaateeyey Sacuudiga kaba sii daran meelo kaloo intaan ognahay waa yar tahay marka taas dhacdadaas gabay aan usoo tiriyay aad صح ولا جدد waxa way macna wadankeena hadaan joogi nabad aan haysan lahayn waxaan naguma dhicin sidaan leeyahay xirxiran waa صح waa gartay ما شاء الله waa gabay aad u wanaagsan waay xogaa yar oo taxyaro macaan waay iska ha
occasional kale ma jiraan oo aad leedahay occasional kale oo aad sidaas oo kale wax ka tirisay ma jiraan dee maanan soo qaadan kowdhe marmaray kugu soo maaxdaan marmaray igu soo maaxdaa marka badanaa dadka waxaa ahay wax qoro markaan qofka gabyaaga oo qofka markuu wax arko isla markaa wax hore ka tirinaya aniga waxaa dadka waxay ugu qaadataa umalaynaya maalin iyo 2 habeen ay ugu qaadataa inaan qoro eryada isku aadiyo mid kalan idinkugu dhufanayaa oo isagana wadani ah miya mise waa mid adiga shakhsi ah waa maya ba aniga waxaan ahay nin wadani dalka jecel mar walba waxyaalaha aan ka naxo ama ka hadlo ama aan gabay ka sameeyo aan jeclahay inaan 2 eray isku aadiyo waa waxa wadanka ku saabsan inta badan waxaa jirtay gabay kale oo aan maran la yaabay xaaladda iyo sida dalku u qasan yahay iyo marba qof la xiriirinayo marba qof la keenayo marba maamulada la isku qabsanayo maamul gobolada la sameeyo waxaas markaa arkay baan gabay yaraan sameeyaa jirtay oo aan isleeyahay dadka ay ku canaano xaaladda dalka uu ku jiro iyo iska qabsashada dadka madaxda ah ee iska qabsanayaan gabay ka tirisay marka waxaan yiraahday Somali Malay isu muruqyo weynay Somali Malay isu muruqyo weynay isu madax iyo buuray marti dunida joogtay inaad muranto mooyee macna kale ma haysaan inaad magac qabiil iyo maamul gobolka sheegtaan misna kala fogaataan mooyee macna kale ma haysaan anaa mudan anaa maqan anaa madax u taagnaa anigaa malaa'ig ah anaa shacabka maareyn anaa madaxweyne doorana anigaan layga maarmine manfacada bari dhiga macna war munaafiq mooyee macna kale ma haysaan cakum mooshin badana cakum maal agoon cune cakum muuq wadaadlaha macna dadka wadaadada waag caku miinada xabaal iyo mooryaan kitaablaha caku maafi iyo tuug caku marin habaabshaha maskax kala adeegsato caku midaba badanaha marba shaati kuu xiran murugooyinkan baas waa meheradiine macno kale ma haysaan kaasna waxaan ugu dan lahaa xaaladahan qashan iyo ma aragtay dee marba meelaan ka taabanay marna maamul gobolada la kala goosgoostay marka dadkaygaan islahaa baraarujin gabay oo ahaa يومين noo haysaayo qisooyinkii kugu yaabka badnaa ilaa hadda nooma aan soo horta maadaama ay tahay haweeney horta anigu aan si saaxiibkii kale ma yihiin gabyaa oo gabay wax la keeni karo ma wax qofka ilaahay haybadii wax uu siiyo way waa sax waa isku diin umar naan gabyaa noqdo kiisoo istirkiis madaxa waxaan oo sadad ma qad faraha ka qaado marka adoo waxa si jirta adoo ilaa 2 sheeko 3 sheeko iska fanay ayaan soo diyaariyay oo hadda korna anu sheekooyin aan soo diima waa sheekooyin aan maqlay waxa jira wadaad oo Turkiga magaciisa ma qaan waa iloobay wadaadka marka خميس بالصبح تقرير بس كربحي ذاك ما واحد النيو كان مساجك نوتجي مساجك مغرب كي عشوت الجاء القرآن قوي قناع سو ما قدام واحد قضبنا قبل نكا قضبي حديث واحد اسمه قان نكا هذا رومر وقت بيز يا هاي واسم مشغول يا مركب ما قدام محل يروي الا قضبنا نوجه انسان نكا ما قدام مش يسوي عيوبه ولا النبي يبيح وعيوبه انسان منبر ممكن تشتغل ولا دمي ايوه ذاك واحد هاي ما انت هي قان قضبه حق اساسا بالس في المنطقة منبركو كده waxaan ka leeyahay diin aqoon ma ay loo ganaysan mudaha ninka uu baxo marka dadku way yaabeen dadku markuu waxay ku heshiin jamacada hadda madu imaado aan dhahan wuxuu wana qana wax ka leeso jamciye labada soo istaagay wala adimeen maanta ay qana wax ka leeyahay wana qana wada taqaan ma ay loo ganaysan marka aniga labada jeerba uu ka digay awal wuxuu yiri waxa ka leeyahay diin aqoon maxaa gartaa jamciyada waxay wana qana ma kasir hada taqaanaba ay loo ganaysan jaan soo ku go'aya ويقص نظر معلوم أنتكم أنا جمعين استحالة الحكومة إن الآن بس جروبنا وانا قناع جروبنا ما نقنا وسويس تاي ولا دم صدق ما تقصد إيه كان جروب أنا ما وانا قنا كوانا ما نقنا كوي قنا كوا قنا وش يوم ولا هذيك سويشيا هذيك كوا قنا هكذا كوا يعني ولاد كوكولا ما قد ما فرق كذا أردنا صرنا نحول سمينا صوت ما يقنا ما قرر ما قال إنه سعيس كنت تجي مخرب كيسي عشيسة والحمد لله بربناس وسك آخر يروى قضاء دوس وجه دي نكو العبوة قرر من غير إيرنا وإن هذا ونكسر وكذا برنامج كواسو أفجرينا مركز هذه إلى هذا كده يا الله هم بلجينا يا مركز ما دام السنة كان عصب لبض كوني شني توان كان صاق المي
waxaan malaynayaa waxaan haysiin dad badan oo hambaliyeysiin marka yaad halkan salaamo ama hambalyo iyo uga daraysaan haddii ilaahay anigu horta waxaan salaan u dirayaa dhammaan maaragtay qaraabadeyda iyo ahladeyda gaar ahaan hooyo ayaan salaan u dirayaa iyo dee intii taqaana dhammaan waan salaamaya waxaan leeyahay maaragtay sanad cusub waxaan rajeynaynaa sanadkan sanad maaragtay inuu noqdo sanad wanaagsan inuu noo noqdo hadduu ilaah yidhaahdo waxaan idiin rajeynayaa maxaan idhahdaa bashbash iyo barwaaqo aniga waa ka duwanahay horta ugu horantii inkastoo wax walba lagu bilaabo familka waxaan ku bilaabaa in familkayga sanadka soo socda ay sanad fiican u noqdo sanad ay barwaaqo iyo nabad helaan walaashay oo maraykanka joogta iyo hooyaday iyo kulligood dhan oo diraya hambalyo fiican dhammaantii waxaa kaloo rabaa in gabar oo girlfriendkiga inaan u diro dhammaantii yaa heli kara hambalyo fiican inaan u diro magaceeda leh noo sheegi ninka romantic waxa magaceeda ma sheega laakiin qof xoogaa ugu weyn waaye marka isku nacin iyadoo telefishinka laga sheegaya magaceeda magaceeda ma sheegin iyadana waxaan hambalyaan leeyahay sanadka soo socdana waxaan rajeynayaa khayr badan iyo guula aan rajeynayaa iyo familkayga dhan oo Afrika iyo adduunyada dhan wada jooga Toronto iyo Australia iyo meel walba jooga waxaan leeyahay iyagana sanad wanaagsan hambalyadaas iyagana waa la wadaagayaa gabadha ma lahaysid miya xoogaa cilaankaaga sii diyaarsa sanadkii waa dhashay aan balansanayna wallahi waa sanadkii loo balansanaa ma taas dib u dhiganahay saaxiibkii aad ayuu qosliyay intaan TV daawanayay ama antiga weligii ma arkin nin xaaskiisa ama girlfriendkiisa u hambalyeynaya yani waa geesinimo nagu saaciday يعني رومانتي واحد وقصاهم بلينا من كورة ثانية مدة الغاد حتى أنت ما عم شيء يا ضد كم مكر تريك ضد بقى يروح معنا ضد أصلا يقولون إنه مركب جود أنا يعني أبي هويدي ولا علي حبيرتي حبيرني وحيد أنا صاحب بدي أنت أقانو صاحب بدي فيسبوك كلي لما أنت أيامهم بلينا يا حرجينا علم اللي عفان الله يسيو حتى ما عقار شيء وحلايا وضد أنا قارئ اللي هو قارئ واحد لبوا أركان ما كان ما أنت وسلامتي دين نقول يا عفان يعني رجينا إن شاء الله ilaahay idinkiisa aad ugu mahadsantihiin horta booqashadiina aad studio-ga nagu soo booqateen ee ka qaybgalka aad barnaamijkan nagala soo qayb gasheen haddii ilaahay raali ka dhigo waxaan rajeynayaa in sanadkan sanadkiisa dambe ilaahay caafimaad cimri dheer cibaado suuban iyo barwaaqo insha allah iyo nabad wadankeennii guda iyo dibaddaba ilaahay inuu nagu siiyo idinkana haddii sanadyada soo socda ilaahay idankiis dadkii sidaan oo kale haddana u wada ciida oo maaragtay wada kulmo ilaahay naga dhigay insha allah intaasaan marka barnaamijkeennii aan uga baxeynaa daawadayaal idinkana waa ku mahadsantihiin kasoo qaybgalka barnaamijka aad nala caweyseen barnaamijkan oo ku saabsanaa sagootinta sanadka 2014 iyo soo dhaweynta sanadka 2015 barnaamijkan wuxuu toos idinkaga imaanayaa magaalada Columbus ee gobolka Ohio gaar ahaan studio-ga Danger Media halkaad ka daawanaysiinna waa telefishinka caalamiga ee Somali Channel waxaana idinkugu hambalyeynayna mar labaad iyo mar saddexaadba sanadka cusub ee 2015 waxaan idin leenahay meel kasta aad joogtiin idinkana bashbash iyo barwaaqo saad arkayseen barnaamijkeena wuxuu iska ahaa barnaamij sheeko ah oo aanan ahayn barnaamijyadii hore aad u barateen marka insha Allah haddii ilaahay intaan midka kale ku kulmi doono iyo barnaamijyadeena soo socda waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo iyo is arag dambe oo xiiso leh wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh